I want to welcome remarks by the President of Galmudug, His Excellency Ahmed Duale Xaaf. waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo mudane madaxweynaha Galmudug Ahmed Duale Xaaf. soo dhawo mudane. sacabka soo dhaweeya Xaaf, soo dhaweeya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماتشو قدوميها عقل كسرو سيدا ايسو ايغيا مدن عبد حاشي مدحوينياشي قولة مدحوينياشي هوري حلدبانا دا اي وزير هذا صلادين تا يسمى دا دمانتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللي هذا مهارين إسلام كيبا دميي وارن واختمي مدن مدحوينها قصب مدن سعيد عبد الله دني مركا ugu horeysa horta hambaliyo adiga iyo Axmed Karaash labadii naba guushi aad ku guuleysateen doorashadii ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaad noqotaan kuwii hore u sii wada anaa og horumar badan bay gaartay Puntland meel fiican bay maraysaa adinkana waxaan idinka rajaynaynaa inaad noqotaan kuwii hoggaanka u qabta oo hore u sii wada horumarkii iyo maarta hawshii wanaagsanayd oo runtii madaxweynayaashii hore soo qabteen dadka lagama amaal ka dhaco anugu Garowe waxa igu dambeysay yaamihii dhaweyd ka hor 89 markii jidkan la dhisayay magaaladan aad bay u yaray halka jidka waxa weeye Garowe Boosaaso markii la dhisayay Garowe qarnu ahaa Boosaaso iyo qarnana uu ahaa laba shirkadood baa kala qaadatay anugu tii waxaan la shaqeynayay ahayd Garowe qarno oo la oran jiray Lofimon meesha aan deganaan jirno inta baawur ka raacnaan magaalada aadi jirnay maanta magaalada bartamaheedii weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horumar aan la maaragtay runtii la koobi karin ayay gaartay Puntland iyo gaar ahaan Garowe Boosaasana malaha waa ka sii daran tahay ayadana waan tagi doonaa insha Allah waxaa noo gaara annaga Puntland iyo Galmudug inaan hawlaheennii hore u sii wadano nabadii inaan hore u sii wadano waxaan rajaynayaa inaan halkaan inta baawur ka qaadano ama Boosaas ka soo qaadano aan ilaa dhuusamareeb tagnay mutawaama ilaahay ka rajaynaya haddana way dhowdahay waana la mari karaa horena waa u soo marnay haddana waa mari doonaa wax kale aan sheegaya lama arko mudane madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Cabdullaahi madaxweyne ku-xigeenkiisa hambaliyo alayaan idin leeyahay dadka reer Garowana aad iyo aad baan uga mahad celinayaa iyo dhammaan Puntland sida wanaagsan oo ay noo soo dhaweeyeen iyo xafladan taariikhiga ah ma filaayo maaragtay hadda ka hor xaflad inta leeg Soomaaliya ka dhacday u malayn maayo intaana waa soo joogay ilaahay waxaan ka rajaynayaa waa idinku dayan doonaa insha Allah annaguna waa gaari doonaa meesha aad gaarteen waana sii jiidaynaa hawsha waana wada soconaynaa dhammaanteen aan cafina horta marka ugu horeysa cafi aliyo masaax marka labaadna ilaahay tawfiiqdana waafajiyo midnimo Soomaaliyeed baa ilaahay ka baryaynaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.